الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال صلى الله عليه وسلم koley maanta kulankeennan wuxuu khaas u yahay maaragtaane haweenka gabadha muuminadda ee muslimadda makaanadee bay diinta islaamka ay ku leedahay halkee diinta islaamku ay dhigtay maxaase laga rabaa haweeneyda muslimadda maxaase laga rabaa halkeese nolosha bani aadankana ay haweenku ay kaga jiraan ilaahay caza wajalla haweenka si gaaruu ilaahay u ammaanay oo qur-aankeena kariimka haddaad maqasheen suuratu ibraahim iyo suuratu muxamed iyo suuratu yuunus iyo suuratu yuusuf iyo suuratu nuux iyo suuratu huud kadalika qur-aanka waxaa laynoogu sheegay suuratu maryama bal qur-aanka kuma taalla suurad loogu magac daray suurat arijaal laakiin waxaa ku taalla suuratu nisaa aabbaheen aadam calayhi salaam markii ilaahay uu abuuray istiqraar buu nebi aadan u waayo naftiisii way xasili weyday deedna markaasaa feedhiisa bidixintoo laga soo qaaday baa laga abuuray xawaa ummana xawaa liyaskuna ilayha si markaa uu u xasilo maqaasida maaragtaane zawaajka waxaa ka mid ah in labada qof ay isku xasilaan haweenku keligood ma noolaan karayaan ragguna keligood ma noolaan karayaan khalqigan ilaahay abuurayna daa'iman ilaahay laba nuuc baa ilaahay ka dhigay laba nuuc wakhalaqnaa min kulli zawjayni lacallakum tadakkaruun baa ilaahay yidhi khalqigan adduunyada aan arkayno oo dhan mid walba waa laba nuuc weeyaan habeen iyo maalin rag iyo haween nolol iyo dhimasho farxad iyo murug qani iyo faqiir janno iyo naar muslim iyo gaal ilaahay jalla wacalaa isagaa nolosha sidaa ugu talagalay inay mar walba laba nuucoo iska soo horjeeda noloshu ay ahaato marka haweenkuna keligood adduunka dusheeda inay kuma noolaan karayaan waa mustaxiil ragguna keligood ma noolaan karayaanna waa mustaxiil markaasaa kaalinta haweenku nolosha ay kaga jiraan baa weliba muhiimad gaara la siiyey limaada lianna warshada bini aadanka lagu dhex sameeya waxay ku taallaa caloosha hooyaday ku taallaayo caloosha ragga dhexdeeda kuma taallo oo hooyadu marna waa warshad oo ilmihii caloosheeda lagu dhex abuurayaa ilmihii qur-aanka ilaahay noogu sheegay walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min tiin uma jacalnaahu nudfatan fii qaraarin makiin uma khalaqna nudfata calaqatan fakhalaqna alcalaqata mudqatan fakhalaqna almudqata cidaama fakasawna alcidaama laxma uma ansha'naahu khalqan aakhara fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin jala jalaaluh allahu akbar
bini aadankan abuurkiisii hore ilaahay waxaan ka sameeynay tiin dhoobo ayaan ka sameeynay waa nabi aadam calayhi salaam carrada nabi aadam laga abuurayna 40 sano malaa'igtu ay midba meel ka soo qaadayeen 40 sanana baa la yidhi waa la laaqayo waa la isku laaqayay 40 sanana baa la yidhi waa la sawiray oo sawirka ayaa taagnaayo waa ingegayay markaasaa ilaahay 120 sano kadib ayaa nabi aadam calayhi salaam ruuxda lagu afuufay aadam abuurkiisu halkaasaa la soo mariyey ama basharka kale oo dhan bini aadanka kale oo dhan ilaahay wuxuu yidhi waxaan ka samaynay baa ilaahay nudfa biyaha yare isku tagaaya biyahaasoo maaragtaan haweenka iyo ragga labaduba ay ka imanayaan oo riximka ay ku kulmayaan ayaa qofka bini aadanka laga sameeyey xadiidkii saxiixa ahaana nebigu waa kii lahaa 40ka hore maaragtaan waa nudfa waa candhuuf yar oo meel taallo riximka dhex taallo weeyaan 40ka dhaxana buu nebigu yidhi maaragtaan waa waslad yar oo hiliba 40ka dhaxana buu nebigu yidhi waa xinjir yar oo dhiiga 40ka saddexaadna buu nebigu yidhi waa waslad yar oo hiliba ثم أنشأناه خلقا آخر وإلهي يدي فكسونا العظام لحما ثم مركاسا بن آدم كإلهي الله فيه يدبكي انتو الله قاضي أيا الله أبو رياء الله وينيا بقولي الله باتنكاها بين علمه مركو علوشيسا علوشه يو صدح دا مرحلة والمركا وصومرو أيا ملك لوسو ديبا يا الروح دا لأن ملك مركاسو الروح دا كو أفوفا يا مركاسا ملقاس ilmaha ruuxda markuu ku afuufo afar shay baa qofka ruuxda maaragtaan ilmaha ruuxda galay riximka galay afar shay baa loo qorayaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ajashiisii maalinta uu adduunyada ka dhimanayo ka soo bixi doono habeenka ruuxda lagu afuufay riximka hooye ayaa la qorayaa qani iyo faqiir midku noqona habeenkaas la qorayaa oo arsaaqada adduunyada inta uu joogo wuxuu cuni lahaayoo dhan habeenkaas la qorayaa shaqi iyo saciid magmid liibaanay oo janno galayaba mise waa qof khasaaray oo naar ku dambeynaya habeenkaasaa la qorayaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la qorayaa maaragtaan lab iyo dhidig midka uu noqonayana habeenkaasaa la qorayaa buu rasuulku yidhi dadna markaas riximkaasi kuma yaalla aabbaha calooshiisa kuma dhex yaalle hooyada caloosheedu ku dhex yaallaa dadna markaa hooyadu halkaas hawshu ay kaga bilaamaysaa matag baa ku bilaamaya lafagarac baa ku bilaamaya wax kasta uu uraya markaa carfigii udgoonaabay waayaysaa dadna markaas 3 bilood oo dhan hooyadu ay galgalanaysaa lana riximkayga dhexdeeda khalqi waxa lagu abuurayaa bashar bani aadam baa lagu abuurayaa oo haweenku marna waa masnac waa warshad weeyaan 9 bilood ilmaha caloosha ay ku sido وبين الحياة والموت بين هذا العلماء هوينكم نلول إيه جيري أنت أود حيس أيه كجران وولولي والبهار وحي مر والبكاف مر ويفرح يسايا وحي لا ده هي الماء أياد مرد وأضل دونتا مرنا ويمرجون وحي لا ده هي مدراعي دونتا مسوات كهري دونتا هذا هو يدو أمش أي كل متن أبو النبي قيري وشهيدد ويانو أجر الشهيد بالله قريا قفكا أمش مركي كل متو هويني لأن علمه مركي علوش يدو كصوبحا مركا النفط أي كسو نقونيسا haddana nolol kale ayaa u bilaamaysa noloshay u bilaamaysa naxariistii ayaa qalbigeeda ku ziyaadaysa naas nuujin baa u bilaami doonta hurdada ayaa ku yaraani doonta ilmuhu hadduu habeenka soo jeedo way la soo jeedaysaa hadduu bukoodana way la bukoonaysaa hadduu seexdana way la seexanaysaa hadduu isrogana way isla rogaysaa ma seexanayso mana yeelaysa siday haddeetoole iyadu ay rabtee ilmaheega siduu rabay ayay markaa yeelaysaa haddeetoole nolosha raggu kama warqabaan laakiin waa nolol haweenka u khaasa weeyaan ajar badanna way ka helayaanoo maxaa yeelay riximkooga basharka oo dhan baa soo maraya oo waxaa adduunyada dad jooga oo dhan ininka ayaa dhalay ininka ayaa ku soo tabcay ininka ayaa koriyo barbaariyey ininka ayaa naaska nuujinayay ininka ayaa maaragtaane la soo jeedayay aabbuhu waxaasoo hawla kama warqabee hawshaasi waxay khaas u tahay hooyada ayay khaas u tahay xaqa hooyadana nebigu meel buu saaray oo nebiga ninbaa u yimid oo yidhi dadkayga ayaa iigu xaq loonu samafalaa marka hore ii sheeg markaa buu nebigu ku yidhi hooyada haddana mar labaad buu nebiga ku celiyey haddana mar labaad buu nebigu ku yidhi hooyada haddana mar saddexaad buu ku celiyey
haddana markii saddexaad buu nebigu yidhi hooyada deedna markii afraad buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aabbaha buu nebigu ku yidhi saddexda hore nebigu hooyuu sheegay hooyo inay xaqa koobaad la siinayo xaqa labaadna iyada uunbaa iska leh xaqa saddexaadna iyada uunbaa iska leh marka afraad buu nebigu yidhi aabbo nebi ciise calayhi salaam yaraan buu ku hadlay erayadii yaraanta markuu ku hadlay uu yidhi waxaa ka mid ahayd markuu qoomkiisa u sheegayay rabbigii inuu la soo dardaarmay wuxuu yidhi wabarran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya wuxuu aniga rabbiga ii amray oo maaragtaane rabbi igula soo dardaarmay intaan adduunyada ku noolahayna inaan hooyadayda maryamee cidlada igu dhashay inaan u samafalo ayaa lay amray walam yajcalnii rabbi igama yeelin aniga jabbaaran shaqiya mid jabbaara oo adag oo macsi badan oo kibir badan oo ahlannaara aniga ilaahay igama dhigin buu yidhi laanna nebi ciise calayhi salaam isaga aabba lagama abuurin hooyo keliya laga abuuray hooyadana waa lagula dardaarmay maxaa yeelay hooyadu mansilad bay ku leedahay diinta islaamka nin saxaabada ka mid a ayaa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa inaan aado markaa buu nebigu ku yidhi labadaadii waalid ma nool yihiin mise midkood baa nool maya hooyaday baa nool buu ku yidhi hooyadaa raalli may ka ahayd safarkan aad iigu timiday may raalli kamay ahayn buu yidhi markaa buu yidhi sow jihaadka aad rabta inaad aaddo sow janno kama rabtid haa janno uun baan ka rabaa markaa buu nebigu yidhi orodoo hooyadaa ku noqo iyada lugaheeda qabso oo raalli geli halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu ye elzim rajlayha uma aljanna lugteeda qabo oo u duug oo adeec oo baari u noqo hooyada jannadaad ku rabtay inaad jihaadka aad ku hesho hooyadaabaad ka heli doontaaye buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka xuquuqda haweenku ay leeyihiin xaqa hooyadu ay leedahay xaqa gabdhuhu ay leeyihiin annaka nebi maxamed baa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam man caala jaariyatayni xataa tabluqa baa nebigu yidhi ana wa huwa ka haatayni fi ljanna ninka laba gabdhoodii ay u dhalatay buu nebigu yidhi ee labadaa gabdhood dhar u geliyey ee asturay ee koriyey ee barbaariyey tarbiyadooda wanaajiyey aniga ninkaasi jannada sidaasaan isku nahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam labadaa farood buu nebigu isku qabto wuxuu yidhi aniga isagu jannada sidaasaan isku nahay buu rasuulku yidhi lama sheegin ragga haween baa gaar loo sheegay hablaha ayuu nebigu sheegay sal alla alay wasalam waayo habluhu ragga way ka naxariis badan yihiin way ka khidmad fiican yihiin way ka damqasho badan yihiin way ka xidhiidhin badan yihiin waalidku markuu gaboobo cidda hayn kartaa waa inan weeyaan hooyadu markay da'deedu ay weynaato aqalka ay ku noolaataa aqalka wiilkeeda maaha waa aqalka inanteeda ay ku noolaataa laanna haweenka ayaa qalbi jilicsan sifadaa ilaahay bay inagu abuuray caza wajal waa sifo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ini siiyey inay naxariistu qaalib inii noqoto lidaalika hooyadu 9 biloodna waa warshad caloosheedu 2 sanana maaragtaana ilmuha yari meel kale wax ka cuni maayo waxay iyadu cunto ayuu la cunayaa saa darteed baa dadka soomaalidu waxay yidhaahdaan waxa umusha udana baa ilmahana udana odayga markay islaanta u dhasho ilmaha cunto u soo dhig kama fikiree laakiin umusha maaragtaane ayuu muqmad iyo subag iyo malab iyo timir iyo raashin buu u dhigaa waxa uu leeyahay ilmaha yar ayadu wax ka cunaya waa run nafaqada hooyadu ay hesho ilmuhu wax ku leeyahay ilmuhu aabbo waxba ka cuni maayo laakiin hooyada naasaheedu ilmuhu ku noolaanaya 2 sano oo ku dhan markaasaa naaskaas hooyada habeenkii ilmaha yar hadduu kacuu qaylyu ooyo oohinta nuuca ay tahay hooyada garanaysa aabuhu ma garanayo odaygu wuxuu leeyahay ilmaha yar naga seex oo naaska naga siida naaska ku qabo waxay leedahay oohintani oohintii gaajada maaha gaaja ma haysee laakiin jirro ayaa hayso uu xanuunsan yahay haddana marka uu ilmuhu qayliyo ooy markaasuu ku odhan doonaa ilmaha yar naaska naga siidee waa ka qayliyahan ka seexane markaasay odhanaysaa maytani gaaja ma haysee oohintani oohintii gaajada ma aha laakiin waxa uu leeyahay meesha aan jiifaan ku kaadshee gogosha aan ku jiifo way qoyday iga bedel buu leeyahay deedna way ka bedeli markiiba
هذا بريهنا وحيابا كلو دا لسكو قبطا بصوب حيبا هذا مركز أويا لا ilmaha yar maxay helay dib u leeyahay markaa bay muu buka markaas ay leedahay maya oohintii bugtaanta ma ahe lula ayaa hayso wuxuu leeyahay hurda ay haysay maama isaaxib uu leeyahay dadna markaa bay aqalka la galaysaa naaska intay ku qabatay seexinaysaa ilmaha yar oohin kaliya ayuu ooyayaa laakiin oohinta inta macnay sameynayso aabuhu ma fahmaayo inankuna walaalkiina ma fahmaayo adeerkiina ma fahmaaye hooyada baa fahmaysa لأن الصفات هو يد إلهي بقليه تبارك وتعالى بركة هواينكو مكانت بدينة الإسلام كأين لكت مكانت ويل وهويو وورشد والناس موجسو وبربارسو ومعلمد ومربيد علمه انت بدن هويو أكفر يا أبا ما أكفر ديو هذا هو يد الصالحات أي نقطه gabar wanaagsan oo diin leh alla ka cabsi leh haday noqoto ilmuhu inta badan hooyada raacayaan ay ku dayanayaan laakiin hooyadu haday noqoto to aan diin danaynayn oo ilaahay aan ka baqayn oo ninkeedana aan adeecayn oo salaada aan ku dadaalayn haday noqotona ilmuhu inta badan sida hooyadu ay noqotay yeelaan baa leeyahay marka hagaaga haweenku ay noo hagaagayaan waxaad ogaataan mujtamac oo dhan bay noo hagaagaya walaalayaal laakiin haweenku haday bilcantu haday naga xumaato waxaad ogaataan kaligood ma xumaane mujtamaca soo socdo dhan bay naga xumaaday walaalayaal marka maamadu mar waa warshad mar waxa weeyaan waa murdica oo ilmaheeda ayada naaska nuujinaysa waxa la doonayaa naaska markaad nuujinaysa ilmahaagana haddaad karaysa inaad weysaqab ku nuujiso ayaa fiican haddaanad karayna markaad naaska aad ku qabanayso وأنا بسنك أقبتها وحاد على برق صد نم بقرة أو بقرة مسلمين تصومر كمدها أيا أصوغ لحاجية ديسي مرودي سيب أصوغ لي إساق أمارك تاني آدم أمر جيسا ونحسن مرقاسا يكوتر محالا نحضي ما أنت نحسن مرقبا كاموغتا بقرة سيوى حجران مركاس وكوير إنا كيني أيا قال ذي ولد قال لمي لهاي جهادك وكو قاضي ciidankiisii waa la soo jabiyay isageena uu soo baxsaday buu markaas ay ku tiri warkaasi war la huba ma yahay iska fiiri markaas maalmo kadib haddana boqorkii oo waxa qasriga soo galay aad u faraxsan marka xaaskiisii baa ku tiri maanta aad baad u faraxsantahay say wax u jiraan ii sheeg waxa uu yiri marka inankeeni gaaladii uu ka adkaaday uu ka guuleystay ghanimo iyo xoolana uu soo qaatay una soo galay magaalada oo galabta soo galay uu soo socda dadna markaas ay ku tiri warkan damba saxa wuxuu yiri adigu soo fadhiiso maalintii hore warkaan kula imidana waad beenayso run been buu noqday warkan dambe maanta aan ku sheegana waa sax ba tire sidee wuxuu jiraan balay sheeg waxay tiri inankayga curad maalintuu calooshayda oo galan caloosh riximkayga aan ku hubsaday ilma inuu galay luqmad xaaraan afka inaan galiyaan ka ilaaliyay tiri maalintii aan dhalayna markii aan taahirsaday tiri naas ma nuujin ilaa naaska waxa nuujinayay bay tiri anoo weysa qabay tiri marka cunuga tarbiyadiisi halka aan ka soo bilaabay inuu gaalo ka soo baxsada waa mustaxiil bay ku tiri waa mustaxiil aabuhu sidaa wax uma ogaan karo laakiin hooyada uu og hooyadu haday hagaagsan tahay ilmuhuna uu hagaagi hooyadu haday baanaatana ilmuhu uu baanaan laba qisadood mar horena waan ka hadlay dhageysta labada qisadood quraanka ilaahay ku sheegay tabaaraka wa taala waa qisad nabi nuux reerkiisa ka dhaxdhacday iyo qisad nabi ibraahim calayhi salaam reerahooga ka dhaxdhacday labada nabi waa laba rusul ulul azmi bay kamid yihiin nabi nuux qisada ku dhacday waxay ahayd qoomkii isaga loo soo diray waa la halaago waa la baabiyay islaantiisiina waa lagu daray inankiisii curadna waa la halaago waa lagu daray bal u fiirso waliba nabi nuux calayhi salaam markii qoomkiisa la halaagayay ilaahay baa u waxyoodo ku yidhi anisna'il fulka bi'acyunina doon samaysa baa lagu yidhi markaasuu nabi nuux doonta wuxuu ku dul sameeyay buur dusheeda
markaasaa lagu yidhi adiga iyo dadka muuminiinta ee ku raacay doontaa fuula khalqiga ilaahay abuuray ee arlada joogana lab iyo dhidig ka saar doontaa wixii aanan fuulin oo dhan waa la halaagi baa lagu yidhi nuux calayhi salaam markuu muslimiintii doonta uu ku guray khalqiga adduunka joogayna loo dhawaaqeen layidhi laba iyo dhidig ha ka fuulaan ayaa inankiisii curad buu u yeedho wuxuu ku yidhi yaa bunaya arkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin inankaygiioo doonta nala soo fuul kaafiriinta maanta macooda ha noqon maxaa yeelay adduunyada halaag baa ka dhacayo kaafiriinta waa la halaagayaa yaa bunaya arkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin wiilkaygii yaraayow nala soo fuul doonta kaafiriinta macooda ha noqon laakiin inanku jawaabtuu bixiyey dhegayso qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyowma min amri illaahi ilaa man raxim waxaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin markaasaan inan nuux baa hadlo wuxuu yidhi buurtaa dheer baan ka fuulayaa biyaha imanaya aad sheegayso nuux baa u jawaaboo ku yidhi laa caasima alyowma min amri illaah maanta amarka ilaahay cid ka badbaadaysaa ma jirto cid ilaahay u naxariistay mooyaane cid kale ma badbaadaysee maaha nebi nuux wuxuu yidhi biyaa imanaya bal amar ilaahay baa imanaya adduunka amar ilaahay baa imanaya maanta ciddii ilaahay u naxariista amarkaa ka badbaadaysee anu waxaanad ogayn baan ogahay buu ku yidhi doontaa ila soo fuul buu ku yidhi walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta macooda ha noqon ayagoo markaa wada hadlaaya ayaa biyihii iyo mawjkii iyo hirarkii biyaha dhex maray duufaankii deedna inankiisii uu qarqoomo halkiiba ku halaagsamayey nebi nuux markuu arkay inankiisii oo la halaagay ilaahay buu baryo wuxuu yidhi wanaadaa nuuxun rabbah qaala rabbi inna bnii min ahlii wa inna wacdaka alxaqu wa anta axkamu alxaakimiin qaala yaa nuuxu innahu laysa min ahlik innahu camalun gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm innii aciduka an takuuna min aljaahiliin nebi nuux baa loo waxyoodoo lagu yidhi yaa nuux kani ehelkaaga ka mid maahayn baa lagu yidhi camalkiisu ma wanaagsanayn oo ma wanaagsan maxaa looga jeedaa ilaaha ku abuuray ku soo dirtay ma rumaynin adigana shareecadaada iyo diintaada iyo nebinimadaada ma rumaynin markaa ehelkaaga kani ka mid maahayna baa lagu yidhi waxaanad aqoon iyo cilmi u lahayn hay weydiin baa ilaahay ku yidhi sidii baa inankiisa markaa lagu halaagay qisadii waa taas aabbo ayaa cunugiisii ugu yeedhaya inuu badbaadiyo oo cunugiina iska diidan yahay qisada labaad waxa weeyaan waa qisadii nebi ibraahim calayhi salaam iyo wiilkiisa ismaaciil dhex martay ismaaciil markuu ibraahim uu soo galay maka waxa amar lagu siiyey inankaaga ismaaciil qaado xagga ula kacbaa lagu yidhi jamaraadka dhagax tuurka laga tuuro xajka mine ay ku taallo sida neefka xoolaha loo birayo inankaaga u soo biree waa waxyi weeyaan ilaahay baa u waxyooday markaasuu isa soo raaceen halkaa markay joogaan uu faraskii ka dhaadhacay ibraahiim uu ismaaciilna ka dhaadhiciyey ayuu ku yidhi yaa bunaya falammaa balaga macahu sacya qaala yaa bunaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maada taraa qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin halkaa markay wada joogaan buu u sheego wuxuu ku yidhi waxaan ku manaamay anigoo ku biraynaya sida neefka xoolaha loo biraya kuu biraynaye bal ka tala bixi buu ku yidhi arrinkaa maxaad ka qabtaa maxaad se odhan lahayd yarkii yaraa jawaabtuu bixiye dhegayso qaala yaa abati ifcal maa tu'mar buu ku yidhi aabbahaygii wanaagsanaayow amarka lagu amray adigu yeel oo buuxi anigana waxaad arki doontaa buu ku yidhi inaan ahay mid adkaysto oo sabir badan inaan ahay insha allah ayaad arki doontaaye adigu amarka ilaahay buuxi buu ku yidhi kii hore nuux inankiisa wuxuu ugu yeedhayay inuu badbaadiyo waa iska diiday ibraahim calayhi salaam inankiisa wuxuu ugu yeedhay inuu gowraco uu sida neefka xoolaha loo bireeyo uu u bireeyo ugu yeedhay uu yeelo wuxuu ku yidhi aabba amarka ilaahay buuxi anigana waxaad ii heli doontaa inaan ahay mid adkaysto sabir badane waxaa la yidhi maxaa labada ubad u dhaxeeya labada ubad maaha farqigu waxa weeyaan waa labada hooye labada ubad kala dhashay weeyaan farqigu nuuxna waxaa dhashay islaan gaalnimadeeda qarsanaysay oo mushrikada ahayd oo ilaahay aanan aaminsanayn oo nebi nuux dacwadiisa iyo risaaladiisana ka horjeeday ayaa wiilka nuuxna u tarbiyadaysay
ibraahimna waxa ismaaciilna waxa u tarbiyad ibraahimna waxa u tarbiyadaysay inankiisa ismaaciil waxa u tarbiyadaysay haajara u tarbiyadaysay hooyo markii ibraahim uu cillo kaga dhaqaaqay tidhi ma amar ilaahay baad nagaga tagtay markaasuu ku yidhi haa markaa bay tidhi ilaahay nama dayacaya iska soco hooyo ilaahay ku xidhan baa kana barbaarisoo tarbiyadaysay ka kalena waxaa tarbiyadaysay hooyo ilaahay aan aaminsanayn nebigana aan aaminsanayn baa tarbiyadaysay markaa haweenow idhegaysta haddaad doonaysaan ubadku inay noo hagaagaan ininku hagaaga haddii aad doonaysaan ubadku inay naga xumaadaan gabdhuhu dee markay xumaadaan ubadkooguna way xumaanayaan ogaada limaada lianna mujtamaca waxa ay ku fadhiya waa ininka weeyaan dugsiga ilmo kasta uu ka soo baxayo hadduu sheekh yahay hadduu shariif yahay hadduu madax yahay hadduu faqiir yahay hadduu qani yahay hadduu dhakhtar yahay hadduu injineer yahay waxaa dad maanta magaalada dhex socdo oo dhan mid aynan hooye korinin ma jiro mid aynan hooye tarbiyadaynin ma jiro mid aynan hooye maaragtaane dhabtiisa ku qabani ma jiro hagaaga aad hagaagtaan haweenow mujtamac oo dhan baa inoogu hagaagaya xumaanta ama ba'naanta bilcantu ay naga ba'naato waxaad ogaataan mujtamac oo dhan baa inaga xumaanaya